markii aan sheegay taariikh nololeedkayga waxaan ka tagay wax aad iyo aad u muhiimsan oo laga yaabo inaadan horaan u maqlin miyaan sheegaa mase waa iska dhaafaa ma sheegaa markii aan dhalanayay kulley anigu ma garayn markaan dhalanaye markii aan dhalanayay waxaan ku dhashay 7 bilood meesha aan ku dhashayna isbitaal ma ahayn marka dadkii waxay wax badan iska weydiiyeen inta aan noolaan doono inta ay la egtahay marka qofka ugu dheera aabay u maqnaa markaan dhalanaye waxa uu qiyaasay inaan 7 beri meelaha noolaan doono hooyaday waxay tiri waxaan rajaynayaa inuu dalka iyo dadka Soomaaliyeed anfaco ma noola maanta Allah u naxariisto taa waxay baraysaa macnaha hooyada ay leedahay iyo macnaha dumarku ay leeyihiin waxaan rajaynayaa inay ogaadaan meesha iga yaalaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed dardaarankii ay hooyada i siisay marka yaa rabaa inaan ku soo gunaanado waxay ugu tiraahday maadaama aad noloshaas adag ku soo barbaartay si aad u guulaysato waxaa laga rabaa inaad dadka qadariso waan garan waayay marka dadkii la qadariyo maxay tahay macnaheedu ii sheegaan dhahay tusaale inaan dadka qadariyaa macnaheedu waa maxay maxaan sameeyaa ma amaana ma si fiican baan u salaamaa ma markaan salaamayaan hoos fiiriyaa maxaan sameeyaa waxay tiri qadarinta waxaa ugu weyn adigoo fadhiya qof istaag inaanu kugula hadlo haddaad fadhiisin karta fadhiisi waxaan dhahay haddaan waayo meelaan fadhiisiyana adiga istaag waxaan idin ballan qaadayaa anoo fadhiya adinkoo taagan inaanan idinla hadal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh codkiinana u baahana